السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelka maxamuud cabdilaahi xasan. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Niger. channelka subscribe si videoda like gare kumadna xagga hoose ku qor. dalka Niger ama Republic of Niger waa dal ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. magaciisu wuxuu ka qaatay webida loo yaqaano Niger River. waxa waqooyi bari ka xideeya dalka Liibiya, xagga dalka Chad uu ka xideeyo bari, dalka Nigeriana uu ka xideeyo koonfur, Beninna ay ka xideyso koonfur galbeed, dalka Malina uu ka xideeyo waqooyi galbeed, dalka Burkina Fasona ka xideeyo koonfur galbeed, Algeriana ay ka xideyso waqooyi galbeed. cabirka dalka Niger waa 1,270,000 oo kiiloomitir oo square ah. xagga dhulka dalka Niger 80% uu yahay dhul saxara ah. tirada dadweynaha ku nool dalka Niger sanadkii 2018 wuxuu ahaa 22,400,000 oo qof. caasimada dalka Niger iyo magaaladeeda ugu weyn waxaa loo yaqaanaa Niamey. diinta dalka Niger 99% waa dad muslimiin ah, xagga 1% dad Kristan ay yihiin. luqadda rasmiga ee dalka Niger waa af Faransiiska. lacagta lagu isticmaalo dalka Niger waxaa loo yaqaanaa franc. madaxweynaha dalka Niger magaciisu waa Maxamed Yuusufo. dalka Niger xorriyadiisii wuxuu kala soo noqday gumeystihii Faransiiska sanadkii 1960. dhaqaalaha dalka Niger wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo xoolo dhaqatada. xagga dalka Niger uu haysto keydka ugu weyn adduunka xagga macdanta uranium. dalka Niger waxaa laga helaa macdanta dahabka iyo dhuxul dhagaxa. waxbarashada dalka Niger waa bilaash da'da u dhaxaysa 5 jir ilaa 12 jir. xagga waxbarashadu aad u liito sababtoo ah dadka ku nool meelaha saxara ah. caafimaadka dalka Niger aad ayuu u liitaa. xagga 50% dadweynaha ku nool dalka Niger aan caafimaad helin. cudurrada ugu weyn dalka Niger waxaa ka mid ah malaariyada iyo TB-da iyo AIDS-ka. channelka maxamuud cabdilaahi xasan wuxuu ku rajeynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
channelka subscribe si videoda like gare comment na xagga hoose ku qor